waa wax laga xumaado in xiriir badan ay u dhamaadaan si qaab daran. Ma jirto nolol aan mashaakil ama khilaaf lahayn. Xitaa familiga dhexdiisa wuu ka dhacaa khilaaf, isfaham daro ama kala aamusnaan. Dabcan waa xanuun in xumaan idin dhex marto qof qaali kugu ah ama si aad ah kuugu dhow. Waxaa ka sii xanuun badan inaad qofka ka aamusto asigana uu ka aamuso, mid walibana uu sugo midka kale inuu hadalka bilaabo ama uu raaligelinta bixiyo si mushkiladaha ama khilaafka xal looga helo. Laakiin badanaa waxaa dhacda in aan la isla hadlin, qof walbana uu karaamadiisa ilaashado ama uu iskala weynaado raaligelinta ama inuu hadalka bilaabo. Ugu dambeyn waxaa meeshaas ku dhamaanaya xiriir qurux badnaa bilowgiisa. Waxaa iga talo ah, qofka hadduu agtaada ku weyn yahay, adiga u bilow hadalka, ha ku dayan ee ka wanaagsanow. Sii fursad labaad, laakiin hadduu kaa madax adeego, karaamadaada ilaasho, qofna ha u daciifin oo hore u soco. Fursadda labaad waa sirta hadalkayga. Qof walba fursaddan labaad ayuu mudan yahay in la siiyo, ama inuu qaladkiisa saxo ama inaad noloshaada baloog ka saarto.